السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحابة قيمة يقدرنت يجمدون وايد السلام آد قالوا أصحابي وحن نسعتي قصة بارتي 1 iyo بارتي 2 aan kasoo sheekaynay oo بارتي 3 dhaxda ooga tagnay insha Allah ta'ala kasoo sheekaynin maanta haduu Ilaahay qadaro waxaan ka sheekaynaynaa qisadii qaybtii saddexaad haduu Ilaahay qadaro la socod wanaagsan qisadu waxay ahayd gabar walaasheen ah oo wiil u yara oo xumeeyay wadankaas Kenya oo soo tahriibtay waxay soo mareysay marka qisadu waxay mareysay gabadhu Liibiya xabsiga bay Ilaahay ka soo saaray oo waxay mareysay Liibiya ka soo baxday Liibiya xabsiga ka soo baxday waxayna timid meesha la yiraahdo badda alxamdulillah ayadii iyo asxaabtii la socotay doontii ay soo raaceen Ilaahay waxba kuma yeelin Ilaahay wuu nabad keenay waxayna nabad tageen meesha la yiraahdo Talyaaniga ayadii cunug yar ay wadatay iyo dadkii la socdayba sida dadka loo qaabilayo ama qaxootiga loo qaabilay idinkuma sii dheereynayo alxamdulillah ma sii joogin Talyaaniga way ka sii tagtay oo waxay tagtay abaayo cambaro waxay tagtay wadanka la yiraahdo Australia maalha meeshaas ay tagtay alxamdulillah waa la qaabilay cunugeedii yaraa iyo ayadii meeshay ku nool yihiin marka waxaa jirtay qisada waxay igu soo sheegtay in ninkii saa u xumeeyay ayadoo gabar yar ah oo hooyadeedii curad u ahayd oo aabaheedii curad u ahayd oo ilmaha la dhashay dhamaan ay ka yihiin oo ay u soo tahriibtay Kenya ayadoo sharci iyo waxba lahayn oo gabar yar ah inay u shaqeyso hooyadeeda maskaxda laga galay iyo aabaheedo qof weyn inay u soo shaqeyso walaalaheed ay wax bartay ay caawisay u soo tahriibtay ninkii lugooyada u geystay oo dhibaatada intaas la ay kala soo martay oo uurkii ku deyriyay ninkii yaa waxay tiri oo ila soo xiriiray wuxuu ileeyahay aan walaale isku soo noqono waayo Ilaahay wuxuu ku siiyay ubadkaasa naga dhaxeeya gabadhii aan wada joognay shalay aan darteeda aan ku dayriyana waan kala tagnay ilmaheediina iyada qaadatay marka walaale aan isku soo laabano uu ileeyahay marka see u aragtaaba igu tiri waxaan dhahay kulay hadii aad shalay aad jeclayd oo maanta naceeb aadan u qaadin ma isaga laabatid waa ra'yigayga marka waxay tiri jaceelkii wuxuu isku bedelay abaay naceeb waayo maanta hadaan turanturaado ma lahay oo yar wax noqday yani waxaan soo xasuusanay tir dhibaatooyinkii igu dhaco dhan inuu asaga ka dambeeyay qadar Ilaahay ku dhacday hadii laakiin يعني waxaan isleeyahay tiri dibkaan oo dhan ma mareen ma soo tahriibeen intaan ma noqon lahayn saan ma noqon lahayn asaga ka dambeeyay aan dhahay tiri marka waxa soo dhan qadar bay ku dhaceen ayadana mid sabartu Ilaahay ka dhigay sabrad ah waayo wax walba dadka waa ku dhacaan qadar Ilaahay ku dhacaan qadar Allah ma shaa facal wiilka inuu saa u galo horta ma ahayn waa gabar walaashiisa gabar asaga dhalayo kale waayo horta nimanka maanta jooga Ilaahay qafuur raxiim ka hawn xariista intooda badan wiilal badan oo gabdhaha xumeeya jira kulli lama wada dhihi karo in badan oo fiican way jiraan waayo aabiyaashan xataa way soo xumaayeen lama dhihi karo marka insha Allah Ilaahay hana asturo ayadina waxaan ku dhahay iska sabar waa soo sabray tir intii badnayd asagana waxay tiri hadeertan inay la xiriiro walaalay ma jeclaysan asagana saas uu dhahay balka waran hada waxa ay inta hadana ninka la guursan lahayd ninka ilmaha cunugaada aabiis hada isaga laabatay ka waran qof walba waa ra'yigayga yani ma ay tiri waa ku adkaysatay asagii iyo ayadina saasay ku kala hareen nihaayadii gunaanadkii ahayd awalba qisada aakhirkeedii ahayd waa inteedii badnayd waan ka soo hadalnay labada بارتي 1 iyo 2 aan ku soo kala dhameynay marka insha Allah asxaabta qiimaha ee qadarinta mudan waxa idin leeyahay subscribe sida hore ugu soo dadaal jirteen ugu soo dadaala insha Allah la socod wanaagsan waxyaabo badan oo fiican oo soo gelin doona insha Allah idin qanciya idin farxad geliya assalaamu alaykum wa rahmatullahi